garoon kubadda cagta Olympic maalmahan waxaad u malaysaa in ciyaaraha lagu heshiiyay oo micnaa baraaji ay kooxaha ay ku kala baxaan saddex kulan oo la ciyaaray kooxuhu barbardhac ay ku kala baxeen halka hal kulan oo kaliya ay kooxda Naftaqur markaas ay la yeelatay kooxda Five Star ay iyada kaliya qudheeda Naftaqur kaliya ay markaa iyadu badisay waxayna ku badisay 2 gool iyo hal gool ayay ku kala tageen ciyaaraha iminka ka socda garoonkaas kubadda cagta ee Olympic waa kuwa xamaasad gooni ah wata galab walibana waxa u soo daabasho taga taageerayaal aad u fara badan iyo dadyo aad u tiro badan oo iyagu ka nasanaya aan raadi hool maalmeedkooda maadaama ciyaaruhu waqtiga ay dhacayaan ay yihiin xilli inta badan dadka shaqooyinkoodii maalin xilli waqti dheer ay qabsadeen galabkii 11 oo shab ay ciyaaruhu inta badan ay bilowdaan amaba sooruhu markaas seeriga ka dhawaajiya ciyaartu se ugu dambeyn waxay soo idlaataa 12 ama 10 daqiiqo ama aan maqribnimo ayay ciyaartu inta badan ay soo idlaataa waana waqtiga loogu talagalay in marka ciyaarta la soo gabagabeeyo shalay bay ahayd markii Naftaqur 2-1 ay ku badisay tababaraha kaliya ee saddexda dhibac haystana waxa uu yahay Axmed Sheekhuna oo isagu in muddo ka tirsanaa kooxdaas kubadda cagta ee lagu magacaabo Naftaqur iminkana waxa uu noqday tababarahooda waxa uu muddo ahaa ciyaaryahan markaas dhan walba aga ciyaari jiray dhanka weerarkan u badnaa gool badan u dhalin jiray markaas balse iminka waxa uu noqday nin legend ah garoomadana inta badan ku yar oo aan kubadda sida aan u sii ciyaarin waana macalinka kaliya ee kooxda Naftaqur ay oo markaa u magacaawday in uu u noqdo tababare tababarooyin cusub ayaa iminka ka muuqanaya shaxda markaas garoonkaas kubadda cagta ee Olympic waxaana kamid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Al Mansour waa ninka lagu magacaabo Cabdikariin Rooney kaasi oo kooxda Al Mansour iyana ay u magacaawday ee tababare galabta oo kooxda Hon Afrique ay garoonkaas ku ciyaaraysayna waxa tababaraha kooxdaasi Hon Afrique ahaa ninka lagu magacaabo Fayura oo isaguna in muddo garoomada ku dhex jira legend horeena ahaa kooxdaasi Hon Afrique-na waqtiyo badan markaas ku soo qaatay iminka waxa uu dhahay macallin ay u noqonaya teamka oo asaga ayaana loo doortay in uu markaa layliyo kooxdaasi Hon Afrique maadaama in muddo uu ka tirsanaa macallimiin cusub oo dowra ayaa garoomada lagu dhaxarkaya sida Fatah Amo oo isagu teamkaasi Five Star iyo Danja kulli iyo Roma hadii noqotay inta dhanba soo wada maray ayaa iminkana ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Five Star inkastoo shalay toole laga awood roonaaday isla markaana 2-1 looga badiyay haddana kooxdiisu waa ay dadaashay balse qaladka inta badan lagu bareejeeyay ama comeback loogu sameeyay isaga ayaa lahaa sabab la xiriiray bedel qaldan oo markaas sameeyay waxa uu bixiyay ciyaartooydii marka iyagu sida wanaagsan kubadda ama birta sida wanaagsan u canaananayay ee garoonka ku dhex ciyaarayay si ka dhex muuqday ama taageerayaashu ay daawanayeen sida Nuune ciyaaryahanka lagu magacaabo oo garabka ka ciyaarayay isla markaasna ah kabtanka kooxda waa uu bedelay ciyaartooy dhowr ayuu bedelay balse kuwa kale ayuu qad soo galiyay balse waxa dhacday in markaasi kooxdu ay la weeraro oo weerar badan loo geysto balse Naftaqur ayaa iyada qudheedu waxa ay heshay gool kale oo ay u saddexeen kartay balse weeraryahanka kooxdaas Naftaqur ayaa isagu kubaddaasi iska qasaariyay waxaana moodayba in kubadda uu ka hortagayay oo uu qabsanaya halkii uu deysan lahaa intuu jeesto darbo uu ka dhex bixin lahaa kaybaha ma aysan dhicin 2-1 ayay ciyaartu ku dhamaatay iyadoo 2-1 ay tahay oo ciyaartu wax yar ay ka harsan tahay ciyaar goor haddana loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Five Star haddana sida ay tahay kubaddii waa ay iska qasaariyeen oo ma aysan noqon mid markaa dhalata seeriga ayuu yeeriyay garsoore ciyaartaas dhexdhexaadinaya Ibrahim ninka lagu magacaabo Ibrahim Mahmoud waxa uu dhameeyay ciyaarta sidaasna waxa ku galbatay aan raadi sidaasna waxa 3 dhibac ku yeelatay kooxda kubadda cagta ee Naftaqur halka kooxaha kale idil saddexda koox kale ciyaartayna marka iyaguna ay leeyihiin min hal dhibac kooxda kubadda cagta Al Mansour waxay qaadatay hal dhibac kooxda kubadda cagta ee iyana lagu magacaabo Atlantic waxay leedahay hal dhibac halka sidoo kale kooxaha kale Nyayo Boys iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Wamo ayana min hal dhibac ay leeyihiin waxa 3 dhibac kaliya leh Naftaqur oo shalay toole ciyaartay isla markaana la dhashay Five Star labada kooxood ee maanta iyagu ku wada ciyaaray garoonka kubadda cagta ee Olympic-na oo kala ahaa aan raadi Hon Afrique sidoo kale kooxda kubadda cagta
banaadir iyana waxay ku heshiiyeen barbaro 2-2 ahaa ciyaartaasi ayaa comeback la sameyn gaaray marka qaar inkastoo gool ay la hormartay kooxda kubadda cagta kooxda kubadda cagta ee Hoon Afrika ay gool la hormartay haddana waa la bareejiyay waana loo labeeyay balse Hoon Afrika ayaa markii dambe goosha labaad la timid ee bareejada kadib markii kubad rigoora ahayd oo qarad loogu galay striker kooxdaas marka loo dhigay sidaana ay marka ciyaartu ay ku bareejiyeen isla markaana ay noqotay 2-2 channelka Faaliyaha Dhadhaab ayaa waqti walba aad ka daawan kartaan ciyaarahaasi iyagoo live ah iyo sidoo kale barnaamijka oo aan marka mar waliba daqiiqad aynu idin soo gudbino channelkeena Faaliyaha Dhadhaab hadduu Allah wada leeyahay ka noqdo waxaan idin ballan qaadaynaa in ilaa finalka laga gaarayo ciyaarahan aad daqiiqad aad la socon doontaan ee channelka Faaliyaha Dhadhaab waad ku mahadsantahay sida wanaagsan ee aad ula socotaan channelka iyo daawashadiisa subscribe like iyo share intaba aynaga la baqiilina sidoo kale Facebook ma aha kaliya channelka Faaliyaha Dhadhaab sida YouTube-ka inaan soo gelino oo kaliya balse waxa sidoo kale aad ka daawan kartaan ciyaaraha oo daqiiqad aan soo gelin doonaa TikTok Facebook iyo sidoo kale YouTube intaba waad mahadsantahay Cabdiraxmaan Jaalle Xasan xubinta sportiga channelka Faaliyaha Dhadhaab